حبيبي 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 in aad farxad dhab ah aad hesho ma waxay ka dhalataa in aad hesho wax waliba oo dunida dusheeda yaalla mise waxaa jira faham kale oo sharaxaad u baahan oo ku aadan farxadda bal aan wax yar isdul taagno mid ka mid ahaa raggii adduunyada wax waliba uu yeelay agtiisa la dhigay elvis presley wuxuu ahaa nin dhallinyaro ah wuxuu alla weyna siiyey caafimaad dhammaystiran jirkiisa aad u wanaagsanaa wuxuu ahaa heesaa caan ah wuxuu la seexan jiray haweenka midii uu ka doono inkasta oo aakhirkii uu guursaday sida iyaga aaminsan yihiin haddaba walaalkay ama walaashay ogow elvis presley wax waliba oo dunida dusheeda lagu faano lacag ama maal adduun alla weyna wuu ugu deeqay laakiin ma taqaannaa sida ninkaasi uu u geeriyooday elvis presley wuxuu ku dhex geeriyooday musqushiisa ama suuligiisa dhexdiisa isaga oo isticmaalaya maandooriyaasha kala duwan haddii aad si fiican u akhriso taariikhda fanaankan waxaad arkaysaa inuusan weligiis wax farxad ah uusan helin ama dareemin laakiin uu ahaa mid tiiraayinsan oo murugo iyo calolxumo dareensan haddaba dhibaatada elvis presley haysatay iyo midda qaar badan oo inaga mid ah haysata waxay ku tusinaysaa in farxadda aan ka raadinayno meel qalad ah wiilku wuxuu aaminsan yahay haddii uu barto gabadhaasi inuu noqonayo mid farxad badan helaya sidaasi oo kale gabadha waxay aaminsan tahay haddii ay guursato wiilkaasi ama ay barato inay farxad gaar ah helayso ninka shaqaalaha ah wuxuu aaminsan yahay haddii uu shirkaddaasi u shaqeeyo inuu noqonayo ninka ugu farxadda badan ragga oo dhan dhammaanteen waxaan farxadda ka raadinaynaa goobo qalad ah oo aysan oolin haddaba haddii aad hesho wax waliba oo dunida dusheeda saaran waxaad sii doonaysaa inaad hesho nolol ka sii wanaagsan middii hore ambiyadii alleh culimmada filosofyada iyo dhammaan kuwa fikira waxay isku raaceen in farxadda dhabta ah waa midda aan ka dareenno qalbigeenna gudihiisa degganaan buuxda waa midda lagu magacaabo assalaamu daaqilii ama inner peace haddii aad doonayso inaad ogaato midka farxadda hela iyo midkaanan helin waxaad ku ogaan kartaa markii ay balaayo yar ku dhacdo ama ay asiibto waxaad arkaysaa qofkii farxadda iyo deganaanshaha dareemi jiray markii ay balaayo yar ku dhacdo waa uu murugoodaa murugadana waa wax dabiici ah oo nolosha aadanaha ka mid ah laakiin waxa uu murugada dareemaa maalin ama 2 maalmood kadibna noloshiisa caadiga ah ayuu ku soo laabanaya laakiin midka aan farxadda dareemin markii ay musiibo ku dhacdo wuxuu dareemaa murugo badan wuxuu bilaabaa adeegsiga maandooriyaasha sigaarka qaadka isaga oo murugadaasi la fadhiya intaasi oo maalmood intaasi oo bilood iyo wadartood intaas oo sannadood noloshiisa oo dhan ayaa burburaysa sidaasi darteed ku ogow qofka farxadda hela iyo midka aanan helin markii ay musiibo taabato haddaba walaal qur-aanka kariimka ah ereyga salaam ama nabad iyo duma'niina oo degganaan ah waxay ku soo aroortay 31 jeer halka ereyga farxad qur-aanka ay ku soo aroortay 2 jeer oo keliya welibana labadaasi jeer waxay ka hadlaysaa aakhirada iyo jannada waxa lagu helayo eeg walaal salaada dhexdeeda waxaan ku xusnaa salaanta nebiga sallallahu calayhi wasallam iyo salaanta ama nabadgelyada cibaadada saalixiinta ah sidaasi oo kale waxaan salaada ku soo gabagabaynaa salaanta oo ah assalaamu calaykum sidaasi oo kale salaanta islaamka assalaamu calaykum haddaba waxaad ogaanaysaa ujeedka dhexdeena loogu baahiyey salaanta ama nabadda waxay tahay inaan qalbiga gudihiisa ka dareenno nabadda iyo deganaan buuxda waxaad arkaysaa qof kugu leh waan murugaysanahay waxa kaliya ay qalbigayga dejin karaana waa music si aan u xasilo ogow qofka arrintaasi aaminsan inuu qalbiga xanuun daran ka dareemayo oo aadan fahmi karin laakiin alla weyne wuxuu qofka mu'minka faray haddii uusan dareemin wax farxad ah inuu akhristo digriga alle si qalbigiisa farxad iyo deganaan uu ula noolaado si uu qalbigiisa dhexdiisa ugu dareemo nabad iyo deganaan inner peace assalaamu daaqili الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله
ألا بذكر الله تطمئن القلوب kuwa rumaysan tawxiidka alle iyo tawxiidka islaamka oo ay quluubtooda ka hesho xasilooni xusidda alle xaqiiqdii xusidda alle bay quluubtooda ku xasishaa haddaba walaal waxaan alla weyne ka rajaynayaa in qalbiyadeenna uu ku soo dejiyo nabad iyo naxariis qalbiyadeenna inuu alle ka dhigo kuwa dareema nolosha dhabta ah oo nabad ku salaysan alla weynana soonka iyo cibaadadana naga aqbalo in sha allah حبيبي 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 أنت رحماني أنا إن تبت مناني وإن أذنبت رجاني وإن أدبرت ناداني وإن أقبلت أدناني وإن أحببت